isboortigu waa astaan nabadeed iyo isdhexgal bulsho iyadoo ahmiyadaasi laga duulayo ayaa wasaaradda ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay dhalinyarada magaalada Muqdisho u qabatay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo kaashanaysa xiriirada kala duwan ee ciyaaraha dalka taasoo ay galab kasta u soo daawasho tagaan boqolaal shacab oo ka taageeraya degmooyinka dheelaya galabtaas. رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي غير ويليان وزيرو حلدبانو xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa galabta u daawasho tagay ciyaar u dhaxaysay degmooyinka Boondere iyo Karaan si uu dhiirigeliyo dhalinyarada ciyaarayay ama tartamaya iyo taageerayaasha jecel isboortiga. ciyaartu u dhaxaysay degmooyinka Boondere iyo Karaan ayaa ku soo dhamaatay hal gool kadib ciyaar wanaag ku dhisan akhlaaq isboorti oo ay soo bandhigeen ciyaartooyda kala metelaya labada degmo taasoo ra'iisul wasaare Khayro ugu hambalyeeyay ciyaartooyda labada degmo. رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي غير ayaa dhammaan taageerayaasha galabta u soo daawasho tagay ciyaarta ku dhiirigeliyay inay xoojiyaan nabadda iyo isdhexgalka suurtagelisay in si nabad ah ay ku daawadaan ciyaartan oo astaan u ah nabadda isla markaana ay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo isku dayda inay carqaladayso. tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa galay wareegyadii ugu dambeysay looga gudbayo heerka gurubyada isla markaana lagu gaarayo heerka 16ka. ahmiyadda dawladda federaalka Soomaaliya ay ka leedahay qabashada tartankana waxa uu qayb ka yahay qorshaha lagu horumarinayo dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana loo soo saari lahaa dhalinyaro leh xirfad isboorti oo ay ku metelaan gobolka iyo qarankaba. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.